nin u dhashay waddanka Hindiya oo maanta diinta Islaamka ku qaatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim calaadan mahadsanidin badan. Ninkan oo ka shaqeynaya dabaqa caanka ah ee Colow Tower oo ku yaala wadada dabka ee bartamaha magaalada Muqdisho sidoo kalena muddo ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa waxaa qaar ka mid ah dadkii uu kala shaqeynayay dabaqa dheer ee Colow Tower ayaa waxa ay ku qalqaaliyeen in uu soo islaamo oo uu diinta Islaamka qaato isla markaana diinta Islaamku ay tahay diin naseexa ah keliyana ay tahay diinta Islaamku midda keliya ee lagu badbaadayo aakhiro iyo adduunba taasi oo markaasi uu ogolaaday in uu eego isla markaana su'aalaha uu qabo haddii uu helo jawaabo waafi oo ku filan uu sheegay inuu diinta Islaamka qaado doono. Shaqaalaha Colow Tower oo sidoo kale kaashanaya sheekh masjid ku dhex yaala dhismahaasi ayaa waxay isku dayeen in ay ku qanciyaan amaba ka qanciyaan su'aalihii uu qabay si loogu qanciyo in uu diinta Islaamka qaato walaalkaasi maanta soo islaamay. Balse walaalkan Hindiga ah ayaa markii uu ku qancay diinta Islaamka dhinaca kalena laga qanciyay su'aalihii uu qabay ayaa waxa uu go'aansaday in uu qaato diinta Islaamka sidoo kalena uu noqdo qof Muslim ah oo ka tagay diintii hore ee aan ahayn diinta saxda ah ee horey uu haystay uu ka tago. Xilli ay jamaacada masjidka joogeen ayaa shaqaalihii ay wadeen oo ay geeyeen masjidka si ashahaatinka ay culimadu ugu qabato oo uu diinta Islaamka u qaato isla markaana dadka hortooda ashahaatinka lagu qabto taasi oo ugu dambeyntii ashahaatinka uu u qabtay mid ka mid ah culimada masjidka ninkan Hindiga ah ee maanta diinta Islaamka ku qaatay magaalada Muqdisho. Xilligii ashahaatinka loo qabanayay ayaa masjidka waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah jamaacada masjidka iyo sidoo kale shaqaalaha hoteelka amaba dabaqa dheer amaba dhismaha dheer ee Colow Tower kuwaasi oo markii horeba qayb ka ahaa in walaalkan Hindiga ah ee maanta diinta Islaamka qaatay in ay ku qalqaaliyeen in uu diinta Islaamka qaato oo qof Muslim ah uu noqdo taasi oo jamaacadii iyo shaqaalihii kale ee isaga la socdayba ay aad u soo dhaweeyeen markii ashahaatinka loo qabtay oo ay shafka geliyeen isla markaana ay marxabeeyeen walaalkan soo islaamay isla markaana ay sheegeen in ay ku soo dhaweey doonaan diinta Islaamka maadaama hadda uu iyaga la mid yahay isla markaana uu yahay qof Islaam ah.